Waxaa jira gudbinayaal na tusinaya daahana ka fiidaya xaqiiqooyinka qarsoon indhaha dadka caadiga ah. Waa caddaymo cad oo dhidibada u aasaya falal liddi ku ah nolosha caadiga ah ee aadanaha. Hadda waxaan ku jirnaa sohdimaha iyo xayndaabka lamagalaanka ah ee Illuminati. Ku soo dhawaada mawduuca maanta. Magacayguna waa Cali Ibraahim. Waxay adeegsadaan calaamado ka gaar ah kuwa caadiga ah. Waxay calaamad ahaan u adeegsadaan shimbirta guumaysta oo ay Soomaalida iyo dadka ajaanibta ahiba ka aaminsan yihiin xayawaan shar badan. Sidoo kale waxay adeegsadaan magacyo qarsoon si ay uga fogaadaan in la aqoonsado. Haddii la aqoonsado qofkaasi waxa uu la kulmaa falal aan habboonayn oo uu ugu weyn yahay dilku. Haddii dadka muuqda ay isticmaalaan darajooyinka taliye, suldaan, madaxweyne, malaaq iyo hogaamiye, iyagu taas beddelkeeda waxay isticmaalaan ilaaha, ilaahadda, laaha, layliga, gaamuri, waxyi, kii la ifiyey iyo wixii la mid ah. Sida la xaqiijiyey, Illuminatiga ka sarreeya darajada 30 cid ma aaminsana, maxaa yeelay kuwaasi waxa ay noqdeen kuwo jidkoodu bannaan yahay. Darajada 30 waxaa gaadha oo keliya ragga u carbisan la wareegidda hoggaanka sare ee 33aad. Way adag tahay in la aqoonsado dhaqamadooda, balse waxa keliya ah ee ay ku caanbaxeen ayaa ah khiyaano iyo basaasnimo gabowday si loo qariyo aqoonsiga saxda ah ee qofka ka midka ah iyaga. Waxaase mararka qaarkood dhacdaa in madaxweyneyaal, siyaasiyiin iyo hooballo lagu sanduleeyo inay muujiyaan calaamadaha gaarka ah ee lagu garto kooxdan. Sidoo kale dadka ay ka muuqdaan calaamadaha yaabka leh ee Illuminatigu waxaa lagu gartaa inay yihiin dad u dallacay heer caalami. Illuminatigu waxay aad ugu dhow yihiin dadka kacdoonnada sameeya ama huriya marka loo eego madaxdooda, sababtoo ah waxay marti u yihiin wax kasta oo siloon. Anigoo aaminsan Alle Casa Wajalla ma oran karo kaafiriin tagtay oo kaadi ku dhaashada ayaa adduunka maamula, balse kooxaha ugu awoodda badan ee adduunka waxaa ka mid ah kooxda ilmaqabatiga ah ee Illuminati. Waxaa in badan marag laga ahaa dilal iyo shirqoollo aanay cidna sheegan, balse markii baadhitaano qoto dheer la sameeyey la ogaaday inay ka dambeeyeen kuwa sharka iftiinsada. Ilaa iyo hadda waxaa la ogsoon yahay inay yihiin kuwa daahad gadaashiisa ka maamula madaxweynayaasha ugu awoodda sarreeya ee dalalka Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Maraykanka. Waxaa maragma doontaa in dhidibada waaseen heer sarena gaadhsiiyeen madaxda shirkadaha sida Google, Microsoft, Alibaba iyo McDonald. Shayga keliya ee u sahlaya inay qofka gaadhsiiyaan heer uusan weligii ku rayoon waa inay leeyihiin xadhka isugu xidhan oo ay qofkaasi u furaan markii hawli ku adkaataba. Waxay maamulaan hay-adaha lacagta ee adduunka iyo qaramada midoobay. Waxa aad si wacan u fahmaysaa markaad aragto bahda reer Rockefeller oo ah qoyska adduunka ugu taajirsan oo haysta kaydka ugu badan ee dahabka ee dunida. Yeelashada awood qayaxan oo aad ka heshid Illuminati waxay xidhiidh togan la leedahay aaminaadda aad iyaga ka haysatid. Haddii aad aaminsan tahay siyaasadahooda iyo dhaqamadooda inay yihiin kuwo soo jiidasho leh, waxaa suurtagal ah inay kuu furaan albaabo adiga kaa xidhnaa. Sidee iyo goortee bal adigu soo baadh. Waxaa dhacday in la laayay, la takooray oo la xasuuqay, lana mamnuucay. Waxaa dhacday in gobolkii laga aasaasay laga mamnuucay laguna laayay sanadkii 1785 ee horaantii qarnigii 18aad. Waxay go'aansadeen inay ka mid noqdaan bulshada dahsoon ee caalamka. Xogo laga helay guryaha ragga ugu sarreeya Illuminatiga sida ninka la yidhaahdo Xavier Vonswag waxay ahaayeen mala awaal cabsi abuuraya, sida inay aaminsan yihiin inay dunida mar uun la wareegi doonaan, maalintaasna ay noqon doonaan kuwo muuqan doona. Waa maalintee tolow adigu u dhabagal. Dokumentiyadaasina waxay marin habaabin u ahaayeen dadka inagoo kale ah. Xogta rasmiga ah ee kooxduna waxay ku qornayd farar shaydaani ah oo aysan jirin cid fahmi karta. Sida saxan ee dad badan aaminsan yihiin waa inay isku mid yihiin Masoniyadda iyo Illuminatigu, balse waxaa si rasmi ah u ogaanaysaa markaas si qoto dheer u baadha calaamadahooda. Waxaase la aaminsan yahay in Illuminatigu yahay heerarka hoose ee Masoniyadda. Koox alle ka fog, wehel iyo miciin biday shaydaan iyo ibliis, caabuda oo jilbaha u hoorsata alle qayrkii. Sababta waxaasoo dhan ku kalifaysaana ay tahay xanraadis, arsaaqad kororsi ama taajirnimo. Iyagoo waxaa iyo ka badanba Ilaahay ka heli kara, balse garaad gaabnimo u daah baladba.